tafsiirka iyo marka taariikhda fiiriso iyo marka aad axaadiista fiirisaba runtii door lagaga hadlay kule insha Allah ta'ala waxa ilaahay aan ugu mahad celinaynaa caawa in nala joogo sheekheena Sheekh Mustafa Haji Ismaa'il Harun oo qabanqaabada mu'tamarka inta lagu jiro mu'tamar kasta culimada aan weydiisaan kamid ah Sheekh Hebel ma ku jira Sheekh Hebel ma la socdaa Sheekh Hebel marka ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sahlay sheekhana ugu mahad celinaynaa runtii safarka dheer martiqaadkaas uu naga aqbalay ilaahina miisaanka xasanaadka ha u saaro mawduuc runtii aad iyo aad u gudaweyn laakiin sheekh ku filan ayaana hor fadhiya dakor baan xasuustaan dhageystay sheekha oo leeyahay taariikh Andalus meel hadal kooban laga jeedinayay ka sheekay oo 10 daqiiqo kaga hadal marka aan xasuustaa wuxuu yiri 8 qarni bay dhiibteen 10 daqiiqana waa ay siiseen halkii qarniba daqiiqadii wax la mid aan u hayaabay laakiin mawduucan waa mawduuc weyn laakiin caawa anagu 10 daqiiqo ka badan baan haysanaa sheekha marka waxaan leenahay daalimayna hanaga daalin waan ogahay ilbiriqsi kastoon hadalka sii saaraado inaad niyadii iska leedihiin muu sheekha nooga dhaxbaxo marka Sheekh Mustafa Haji Ismaa'il Harun miisaanka xasanaadka Allah u saaro cimrigiisa iyo caafimaadkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo khaatimadiisana Allah wanaajiyo isaga iyo dhamaanteen iyo muslimiinta oo dhan sheekhan ku soo dhaweynaya falyatafadal sheekhana mashkuuran بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة أن تاريخ ذا هي حوادث دعدوين كدنيا الصومري يكورن كودو هي مصائر الأمم ومدها isbedbedelaya kolba qola maranayso ama qola qabsanayso ama qola xoog badanayso iyo taariikhdu guud ahaan waxay ka mid tahay waxyaabaha bini'aadamka loo baahan yahay inuu ku waayo arko ilaahay baa intuu qiso ka sheekeeyay reer banu Israa'iilkaasi ku saabsiisan ayuu wuxuu ku tilmaamay fa'tabiru ya ulil absar ku cibro qaata ama ku qiyaas qaata dadka aragtida u saaxiibka ah baa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa sabab keenaysa runtii inuu qofku arko adduunka iyo yaraantiisa iyo isbedbedelkiisa waa wax keenaya dadku inay dunida ka zaahidaan oo aakhiro ay baadi doonaan ay markaad aragto shalay ama darad kuwa boqorra ahaa ama dhulal xoogana dawladda talin jiray oo maanta aan waxba ka jirin dul sharaf lahaan jiray oo maanta duloobay wadana soo kacay oo dib u burburay waxa dareemaysaa wada ilaahay leeyahay wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas fi qissati Uhud marka ilaahay ka warramo dagaalkii Uhud ayaa ilaahay waxyaabo ku tacqiibinayo dhowr iyo 10 aayadood ka warramaya يا إلهي وحلي وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وأما المبا إلهي لي أن نددك وكل بدلينه كل بقول قرن قنص ما كانوا لأنه مدينة القدس هي تاريخ هذا الشيخ محمد وحيري 8 qarni baa la yiri 10 daqiiqo kaga waran Qudus waxay ka daawayntay 5,000 oo sanadood magaalooyinka ku yaala Shaam sidoodaba Dimashq waxa la filayaa 11,000 oo sano qaar baa ku tilmaamaya 9,000 oo sanadood meelaha inay jirtay waxa la mid ah ku dhow Halab waxa la mid ah inta ugu badan leh Falastiin magaalooyinkooda oo dhan Ariixa Yaafa Akka Gaza waxa soo dhameeyay 5,000 sanadood way ka weynintooda ugu badan
taa macnaheedu waxa weeyaan waa dhul leh taariikh qadiima taariikh aad u fog oo fac durugsan waa dhul leh madiinat alqudus waxay tilmaamaan oldest partkeeda ama qaybaheeda gaboobay fourth millennium before BC in la dhisay 4,000 sano ka hor taariikhdan aynu hadda tirinayno waa magaalo taariikhdeedu maalan nin ka mida qolaha wax qoro historian maraykana oo Eric Klein la yidhaahdo bug qoray la yidhaahdo Jerusalem besieged from ancient Canaan to modern Israel waxa uu ka warramaya uu bugiisaas ku tilmaamaya muddada dheer ay jirtay Qudus laba jeer waa la dumiyay 23 jeerna waa la go'doomiyay 52 jeerna waa la weeraray 44 jeerna waa la qabsaday haday sidaa tahay taariikhda intaa leeg ee dagaallo ee waxaa leh ma fududa in si dhow looga warramo waxay yidhaahdaan 3,000 sannadood ka hor ayay carabi deganay يعني 3,000 sannadood ka hor tanaynu tirinayno macnaheedu waxa weeyaan waa 5,000 sannadood ka hor baa la deganaa oo ay magaalo ahayd oo magac lahayd haddaynu soo koobno taariikhda aynu hadda ku jirno ee 2,000 1,300 sannadood ka sii hor ayaa dagaallo waaweyni ka dhaceen oo ay u kala dambeeyeen mar masaari qabsatay mar israa'iiliyiin qabsadeen mar ashuuriyiin qabsadeen mar baabiliyiin qabsadeen mar persian qabsadeen mar yunaaniyiin qabsadeen waa 1,300 ilaa 360 qabla al-miilaad inta laga soo gaaray that means 1,200 sano in ka badan ayay ummadahaasi isku bedbedelayeen meeshaasi oo kolba boqortooyo ka talinaysay marka la soo gaaro 63 sano ka hor miilaadkii ama dhalashadii ciise 63 sano ka hor ilaa iyo laga soo gaadhay 636 tan miilaadiga aynu hadda ku jirno waa muddo 700 sannadood ku dhow intaasi waa muslimiinta ay ka taliyeen nimanka romanska la yiraahdo waa waqtigii nabi ciise dhashay alayhi salaam ee diinta masiixiyadii soo degtay waqtiyada qarnigan ama labadan qarnayno hadda ku jirno bilowgoodii markuu dumiyey boqorkii romanska Titus la oran jiray markay taariikhdu 70 maraysay mar 239 markay maraysay ayuu Hadrian oo isna ka mid ah Roman Empire-kii hore mid ka mid ah 335 markay maraysay taariikhdan hadda aynu tirinayno ayaa la dhisay kiniisadan macruufka ku taale la yiraahdo kiniisatul qiyaama kiniisadan la yiraahdo ee kristanku leeyahay waqtiga yar kadibna dawladii romanska kala jabtay oo byzantine iyo romaniyiin kala noqday qaybtii byzantine ay raacday qudus taariikhda marka laga bilaabo 614 meelaha ilaa 622 waa markii ay Persian isku qabsadeen ee quraanku fi suurati Rum oo kaga إلى أن يكون 780 كما نسوى وقت كل يوم وهو السنوات وأنت يمسك كتلتين ولذلك صدق الإصابة الأمر وفتح العمر وقته وفقه إلى أن يوم الدولة العثمانية مثل الجميلية لكن لماذا يريد وعد بالفور العين وامتداد بإدريس وقصدي
هذا بتنين بيسك يهود ما تشوفته ماشي وصار وسلام والسداد الطبقي إلى سلام الله هي السداد يعرف لكن وأنت يهود ماشي تبدل يعرف اللي هي الرأي وسلام والسداد يعرف لكن أوحى بلا ربطي إلى الإنجليز إلى إسرائيل أنت أنا إسرائيل بحيستي وهيك دنبي أنت سوى تاريخ موجزة وينقصوا كوبي كرنو دعدو ينكي كدعي حين اسكو دايدونا بالعهد المسلمين تكتلين ايين إنه حوغا تفصيلك بحنو كلا صار لكن مركو هوري بيت المقدس أما قدس ومال ماموس قمضان ديمها دي يهودة دي مسيحية دي إسلام كطايبة ومال شريعة الإسلامي كنت المام سيري تهي ثاني أقدم مسجد في العالم سيكتبوه ريدوني دالغاندسي إلهي ما قرآن كقول رمى يقول إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة مسجد الحرام بوجوه الرئي مساجد دوني دالغاندسي وحاكو حقي مساجد بيت المقدس كيا لسيد حديث النبي قلت المام وحوالي 40 سنة أفرتنا سنة كدبي مكان ذا هذين وحلقة سيت المامنو وأولى القبلتين ومسلمين تو قبلة دودي هوري وكعبة هرتيج وحلو شيء سنشري حقه بيت المقدس مدة تضبية طوام بلاد ما لها سكون الدو إلى يكسر دجين آيات كترادة بدل في سورة البقرة كتيرة وآيات كوجب بدن باب النسخ قصاء روري إلهي سوء العلي فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ماشي للي يكسو تشيست وبيت المقدس دوري يخطبون بلاد المسلمين تحققوا تكنية مركز يقول نصوص الشريعة وثالث الحرمين وحرم كصدحات وصدح حرم بشريعة وقبطه مدوا مكة مدينة إيوه مساجد كسكية لبيت المقدس وحين كلوا قلنا إنه يا مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي إلهي سبحانه وتعالى وأقوريسي نبي جيس ومن بعدها هدنا وماشي مكان المعراج ماشي إلهي نبي قود دورتين الصمد ووقعه نبي عليه الصلاة والسلام مكة أنت لقى قاضي السماء الله ما قبض سيمين وحلقك حي مكة وحلقي بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده الليلة آياتك أخرجي ولا الكيب ولا قوريسي نبي وحلقي بيت المقدس هل كاسي أيو أنبياء كتوكي سحادثة المامس كدمنا هل كاسي لقى دلمي أنت نهار waxay u ahayd daliil inta dambe gaalada iyo dadka hadii la yiraahdo nabiga halka maka laga qaado cirka la qabadsiiyay may rumaynin laakiin waxa loo sameeyay daliil lagu rumaysto mucjisada dambe oo ah inuu habeen qura nabi maxamed ka baxo magaalada maka oo uu tago magaalada bayt al-maqdis oo samada la qabadsiiyo oo la soo celiyo oo hadana bayt al-maqdis ka yimaado oo maka yimaado وفي ليلة واحدة ومن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وكوي مشركين تو يتحامي مركو يدي حالة هلكا سانتغي عيركا بلغا ما ورمينا وحال الشيء إنه هلكا تغي وحيدان ما دعي كرتو وأيو بيت المقدس نوي قانين سفر كودونا بالبسي سعون شري دبيتنا السؤال النبي قال له ويدين إلهي سبحانه وتعالى سيدي تي في قوكالي أي الله هردقي ماشي ويديان بوط الماما markaasay la yaqiinsaday inuu meesha horena uma arag nabigu calayhi salaatu wasalaam adigoo magaaladana degantay Johannesburg yiri waan tagay oo waligaana iman hadii lagugu itixaamo oo lagu dhahay halkaas xagee u jeedaa halkaas waa caykee wada dhamaanteed ka jawaabto waxa cadaanaysa inaad meesha maxay inaad tagtay idan waa masra rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam meeshii ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga u guuraysiiyay وانا ماشي السماء الله قاضي
وماشى وأنبياء كتكيي ومكان عبادة للمسلمين ومساجد عبادة قارة له والصلاة اللي قلت كده وحو نبي قلت الإمام عليه الصلاة والسلام صلاة مسجد الحرام اللي قلت كده أنا بقول كنت هاي صلاة مساجد كيس اللي قلت كده أنا كنت هاي صلاة بيت المقدس اللي قلت كده أنا محيط هاي شنبغل يعني هلك صلاة بيت المقدس كنت كده وحيقول لي قطع شنبغل وصلاة ضوضة أدميل خلي أن حرمضة أهين كنت كده إذا هو ميل فضل عين كاسيالي هاي كم يتصدح ذا قوابات ونبي كنت الإمام عليه الصلاة والسلام إن يهين مما تشد به الرحال ما لها عبادة لو قصدي كريه لو تذكره نقول كلا السياحة ودو تذكرتها وتصصب بوقن كرتها وتصصب داون كرتها لكن عبادة أديكو قصدين يميل تجستيدو عبادتها هي عبادة الله تقو سدح ذا مساجد باكر أبو النبي قلت المامي يا بيت الله الحرام كمككوية كمدينة هي مسجد الأقصى وميل إدقنايين أنبياء تربضان است القرآن كي أحاديث يا تاريخ طبيعي كورمية نبي إبراهيم بعد دقي نبي لوط بعد دقي نبي إسحاق بعد دقي نبي يعقوب بعد دقي نبي يوشع بعد دقي نبي داود بعد دقي نبي سليمان بعد دقي أنبياء تربضان أي قوبتا سيدقان وضاحي وحين كلها أوران كرنا سيدا نصوص تكور رميسو ومشي كواد جهاد له واجبيي تاريخ القرآن كمركو كور رميا أنبياء دي هورين كان جهاد له واجبين marka rasuusha la soo diro dadka ay diinta u sheegaan dadku diidaan quraanka ilaahay wuxuu inooga warramay nabiga la oran jiray ka baxo ka hijrood dabeetana ilaahay halaagi jiray oo sidii reer caad iyo reer thamuud iyo qoomamkaas oo dhan sidii loo halaagay nabi walba ka bax baa la yiri dabeetana waa la halaagay nabiyullaahi muusa alayhi salaam waxa la yiraahdaa qisadiisu labada dhanba way ka tirsantay markaa waxay ka tirsan tahay dhankii la yiri hal la halaago oo fircoon iyo groupkiisii markii loo taag waayay waxa la yiri ka bax adigu caawa guuraysi wixii reer banu israa'iil ka rumeeyay dabeetana waa kii fircoon ka dabayay quraanku waa khayroga warramayeen badda loo kala jeexay fircoon iyo wixii la socdayba badda la raaciyo lagu halaagay laakiin muddo yar kadib markay ay baddaaba ka soo tallaabaan Siinaa iyo meelaha soo degeen ayaa waxa lagu waajibiyay in hadaba jihaatamaan وأول جهاد علماء إلهدان وكتابه وسجى تاريخ ذا إسلامي أكو سجى وكان نبي الله موسى قصديس لبعض لما ويكتر سنت دنك أنبياء ده هراء وحي بيني إلهي هلاقي إيه دنك أنبياء دي جهاد كلبو واجبية ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله إلهي ووت المامية قال بيت المقدس غير بنو إسرائيل وكوي جهاد كاقلي وايي يريد اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وكوي وركاكين أفرت الصندوق تيها بيكو جرين انت تيها لو جرى نبي موسى نبي هارون بردنتين جهاد كي وجوه الرية وحقو قاضي وبيت المقدس جهاد كحرية يوشع بن نون سيدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تلمام يسوع كي قلبت إلهي وجوشي عدادة يوشع بن نون أيضا قال كاسكو قاضي إذا ودول يدا ينتي كورك سنة بودول بركيسن وإلهي وقت المام يا سبحان الذي أسرى بعبده الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ساجد كانوا بركين با إلهي لي أجاجات في صدر نبي إبراهيم يا نبي لوط مركا إلهي كورميه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين با إلهي لي نبي إبراهيم وكبد بعد النكوي سجى اللوطبة وحانا لودرو إلهي وكبد بعد إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين دول كيدت كوردن لو بركي مكان ده مركا عموما هدينو تلمامنو نصوص بدن أو قرآن له أو حديث له بقصة أروري لكن سيجود بان اللي كنت المامة وحي قصة أروري وهاسي وحي تلمامة يا مركاسي بيت المقدس هي مكان دي سعودين تإسلامي كلية ودينو ابن التاريخ دي سألقى صواب الأبا اللي بقولي اللي صدن كي إلا كن سقال بقولي تضبيو تبن كي لقى سوغاري مدة انتهى لك
gacanta muslimiintu ku jiray laba goor oo ay ka baxday mooyaane laba goor bay fi taariikh ka baxday mar 88 sano miilaadiya ama xawaali 19 sano hijriya ayay maqnayd oo xuruub as-saliibiyya al-uula marna xuruub as-saliibiyya al-khamisa iyana dhowr iyo 10 sanadood markan xoog laguma qabsan labaad mid boqoradii kamid ah hadiyadu bixiyay oo inuu niman kale ay ilmaadeen rayihiin ay istilayeen ayuu gargaar ka dalbayay deetana wuxuu intaana qaadaadnay gargaaraan qoladan iska celiya hadiyad buu bixiyay mid kale xoreeyay haddana mar kale hadiyad loo bixiyay sanad meelahaas ay haddana maqnayd waa isla dawla la ayuubiya ayaana xoreysay bixisayna xoreysayna duwalkii ku abtirsanayay maxay salaxadiin al-ayuubi haddaynu taariikhdaasi markaa bal waxoogaa dul maro oo tilmaamno waa taariikh aad u dheer oo ay adag tahay in habeen qura lagu tilmaamo waxaynu ku bilaabaynaa insha allahu tacaala alcahd alislaami inta inaynu xooga bal saarno wixii aynu ka gaari karno inaynu ka warranno Heracles ninkii la odhan jiray Romaniska ahaa ee ka xoreystay magaalada tan nimankii ahaa Persianiska ee suuratu Rum alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard ilaahay kaga warramayo markuu xoreystay kadib waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam waraaqaha diray dadkii uu nabigu waraaqaha u diray waxaa ka mid ahaa boqorka Romaniska ee Heracles la odhan jiray waraaqdu markay u timi xadiidka Bukhari ku yaalla dheer waxa uu isugu yeedhay niman carbeed oo gaala ah oo safara oo Abu Sufyaan hogaaminayo marka Abu Sufyaan muslim ma ahayn Abu Sufyaan hogaaminayo ayaa la isugu yeedhay dabeetana meel buu fadhiisay su'aalaan idin weydiinaya buu yiri su'aalaani waxay ahaayeen su'aalo uu interview iyaga ka qaadayo oo uu ogaado bal ninkan waraaqda u soo diray nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam waxa uu sheeganaya inay dhab yihiin iyo inaanay dhab ahayn runtii su'aalo interview aad u qiimo badan buu ka qaaday 13 ama 14 su'aalood meelahaas uu weydiiyey mid walbana wuu u sheegay sababta uu weydiiyey dhammaantood dalaa'il an-nubuwwa way tilmaamayaan markii dambe uu la hadlayay iyaga buu wuxuu ku yiri fa in kana ma taqulu haqqan niyo warka hadii sheegtay haduu run yahay su'aalahaas ku weydiiyey su'aalihii jawaabaha siisay haday run tahay fasayamliku mawdi'a qadamayya hatay ka sheegtay wuxuu qabsan doona halkan aan maanta jooga buulay waqad kuntu a'lamu annahu kharij waan ogaabu yiri nabi soo bixi doono laakiin umaan malaynaynin inuu idinka mid yahay ee haddaan awoodo inaan gaadho waan ku dadaali lahaa sidii aan ula kulmi lahaa cagihiisa aanan mayli lahaa akhiiran Heraqal nabi maxamed inuu nabiyay wuu rumaystay laakiin inuu raaco masaalixdiisu ka doorbiday markii uu soo bandhigay intuu wadaadadii meel isugu yeedhay albaabka uu xidhay kiniisadda ee warka uu sheegay ee uu ku yidhi aan raacno mar qura yaaceenba oo qayliyeen deetana wuxuu arkay inaanay ogolayn marka arinku wuxuu taagan yahay inuu iska islaamo boqortooyada ka tagay iyo inuu boqortooyadiisa ilaashado gaalnimadiisa iskaga joogo wuxuu door biday maslaxadiisa inuu ilaashado deetana wuxuu yidhi idinku baaban idin eegayay halkeeni baynu arrimaha ka wadaynaa idinku baan idin eegayo bal diintiina saa ugu dhagantiin iyo saa waxiyiin waa xadiiska Bukhari soo tilmaamayo على كل حال وحين لنا أول بشارة وهي هيتاو شاقي ننك الله يراهضه هرقلس نبينا عليه الصلاة والسلام مركي غزوة تبوك لغنى وذي حديث البخاري كويا الله يسنيه ابن ماجه أحمد بورينيا عوف بن مالك باوحلي النبي قالوا عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك يسقوا تندير وحركة سبيسم كوتشرة يبتنا النبي يقول لي لحتريب ويقول اعدد 6 بين يدي ساعة لح شيء تيري قيامه هرتي يعني النبي يقول شيء على مدى صهرية قيامه وحكم ده العلامات الصغرى وحنا علماء قلت الماما وحكوا لي مركا لحدا انكو شيء وحا وهرية موتي بالنبي يقول
macnaheedu waxa weeye intuu nebigu nool yahay qiyaamu dhici maayo aniga geeridayda ugu horraysuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma fatxu bayt almaqdis buu nebigu yidhi waxaa ku xiga aniga geeridayda dabadeed bayt almaqdis furashadeeda markaasuu nebigu haddana yidhi waxaa ku xiga geeri idiin qaban doonta ka qucaasi alghanam qucaasku waa xanuun hulumbaho kaluguna adigu ah adhiga intuu ku dhaco oo markaasi madho geeri taa adhiga madhisoo kale ah baa idinku dhici doona shuraax ilxadiidku waxay ku tilmaamaa inuu yahay daacunkii dhacay maxay camwaas waa ninkii furtay daacunku ku dhintay يعني أبو عبيدة بن الجراح باه قامين يعيدن كي مسلمين تماشى فرطي إسلا أبو عبيدة وحد لي طاعون كاسي أيوه بنتي كدب النبي وحده عليه الصلاة والسلام فتنة بعد دونتا قري كم ده قري عربيدان كتجي دونين هيدا هذا هو فتن كي مسلمين تصرح مريكا بلا مي دلك عثمان وحكى له النبي قلت المامي هدنا بعد دونتا إذن كي يبني الأسفركم إذن كي أنا ما قرر يوروب كاي وقت هشيسا قشان بعد دونا ودبتنا إذن خيامين دونان وإذن لا يمن دونان عيدما سديتا كنا 80 غاية وطا سديتنا ألوية وطا تحت كل غاية 12,000 وعلن كالصلبية طبنكم أي هو الصعداء حديثك كان نبغى عليه الصلاة والسلام حقوق المامية مسائل كم إذا إسقى قداشي وحي دعيدوني وكان نبغى حديثك وحي نقول شيء اسمه بشارك عليه وصحابة الله المامية إن الفرن دونان غير دي سدبدين ما كان الفرن دونان أبو بكر مركو مسلمين تا إمارة دودي أما خليفة دودي قبطي واتيد على حروب الردة كدب الردة دي مركو كسو تشيستي سنة كلا بيتوبناد هجرة وحب بلابي مرقرة إنه فرشدو دودا بلابو الشام هي عراق لبضبا أما سكالا هدين وتل مامنو لبدي الدولة دودي وويناي دوني دا كتشريبا إسلام مرقرة صحابة دقال قوة قاضي مجموعات بالا ديري مجموعين كي الشام لو ديري وحكم دها خالد بن سعيد عيدا وقامين يزيد بن أبي سفيان شرحبيل بن حسن أبو عبيدة بن الجراح عمر بن العاص صحابة الله دري ميشاس لو ما درين بيت المقدس إنك بلابان استراتيجية المسلمين توحيد بيت المقدس إن الله فوري كرينين إن عواصم تكوها رئيسا إن لقبت مويان دبتنا وحيد دقال كوب بلابين معركة واجنادين بعد عضي ومدينة خليل ماشي مكاليد هذا دين عيدا ومعركة وينيد المسلمين تي الرومان اسكا كلا دحمرتايا وحكى لو دعي نهر يرموك معركة دي كدعضي خالد بن وليد هقامين انت كدب markuu dagaaladu halka marayaan oo Romanski dib badan loo geystay baabay bakar geeriyooday isna muu furanin marka bayt al-maqdis Umar ba amirul mu'minin noqday Umar ciidamadii muslimiinta meesha jiray oo dhan wuxuu isugu dhiibay Khalid buu azilay wuxuu dhiibay Abu Ubayda ibn al-Jarrah ayaa ciidamadaas oo dhan loo wada dhiibay Khalidna isagoo askariya from janannimo ila askarinimo ayuu dagaalka ka qayb galay way ilaahay dartii bay dadkani u jahatamayeen magacyo ma musmay raadinay ama boss may raadinay dagaalada Amr ibn Aas baa wuxuu furtay meeshan imka la isku hayo hala ilaada al-Gaza waa magaalo qadiima yana 5000 sanadood ku dhaw jirtay waxay yiraahdaan waa bawaabada isku xidhaba la yiraahdaa أفريقيا هي آسيا هي ميديترينيان في التاريخ بين هذا المتشرو أن أباطرة دي دوري دا صامرت أما بغرة دي دوري دا صامرت عندما ضها عيد ربتي مش دونها كتر سنة ده إنه دولار كاسي قبصده إلى أيام لها كوادة وقبسن شري وحي بين هذا غزة مركز لقبته كدب أياد آسيا أنا كوفران تهاي أفريقيا أنا كوفران تهاي والشام دعل كذا ويكون على بالي هذا ميديترينيان كنا كوفرية ما بدعنا كوفرتين عمر بن عاص بافرتي المركز اسكو صوّد الداره قيصرية مقالة لا يراهضه
iyo Bayt al-Maqdis mooyaane Shaam tan soka inteedii kale oo dhan waxay soo gashay gacanta muslimiinta marka laga reebo magaaladii Qudus la yiraahdo magaalada Qudus la yiraahdo markii Dimashq ay furteen muslimiintu kadib ay Dimashq ay Bayt al-Maqdis lagu sameeyay xisaarka ama go'doominta markay muddo ku jireen ay waxay yiraahdeen heshiis baan ogolay dagaalka waa joojinaynaa heshiis baan ogolay heshiiska laakiin waxa meesha marka haysta waa Kristan heshiis baan ogolay laakiin bishart heshiiska waa inuu saxiixa nala qaataa amiirul mu'miniin ciidamadiinan iyo raggiinan la gelimayno ee waxaanu heshiiska la galaynaa iyo عمر بن الخطاب وعبيدة بن الجراح مركا فرين بو صدري عمر وليه هي نمانكي دي دولة الرومانيسكية مسيحية قادتي قسطنطين وحي كدن بيه مركا ماشي مسيحيين باعستا عمر باوركي ويمي عمر صحابة دولة الشاطئ لبر رايبا ماشي يمي بالليل هذا عثمان بن عفان وله وحباها كأقبله هاي المسلمين تويلت وقالوا محي وديده يعني kuwa ciidamada muslimiinta la jooga heshiiska u galaan oo isagu ka eegaya dhanka inaanay la yaraysanin dadka muslimiinta xagaa jooga iyo Ali oo isagu fikradiisu dhanka la tahay oo ah muslimiintu hadiiba ay ahdi wax ku helayaan dagaal galin oo dib kale iyo dagaal kale ay galin hadii heshiis wax lagu heli karayo anu waxaan ku talinayaa buu leeyahay heshiiska la qaato adna tagto waxay culimada taariikh ilaahdaan Umar marka magaaladii Madiina Ali buu madax uga sii dhigay isna safar buu galay safarka wax badan baa laga sheegaa oo Umar galay laakiin waxaynu oran karnaa waxyaabo ugu cajabta badan leh waxa kamid ah culimada taariikh ay wada tilmaamaan ciidamada muslimiinta ragii ka talinayay baa ka hor yimi Umar oo raba inay soo dhaweeyaan waxa ku soo baxay markaasi عمر وعقار دوبا كله ولبديسي كبود غعنتا كسيتا ونيف جيله هوغامينيا oo غلامكي نكي u shaqeynay inuu neefka geela saaray ayaa ku soo baxay Umar intii dhexda la soo socday wuxuu inankan shaqaalaha kula heshiiyay war socodka saddex qaybood baynu u qaybinaynaa marna fuulaya awka wada hogaaminaya marna adaa fuulaya waana hogaaminaya marna awka laftiisu waa nafleeyay waa nasinaynaa labadeenuba waa lugaynayna markan waxay ku soo baxeen marka xilligii uu غلامku saaraa awka dushiisa Umarna hogaaminayay waxay soo mareen baa leeyahay dhul biyo fadhiisteen oo dhooba ah waxay taas ku kaliftay Umar inuu kabahana la baxo feeyto labadiisii kaboodna inuu gacanta gashado dabeetana isagoo kabihiina gacanta ku sita awrna hogaaminaya ayuu ku soo baxay waa maalintu Abu Ubayda uu ku lahaa ya amiir al-mu'miniin dad baynu tagaynaa boqorro iyo ubaha waaweyn qaata protocol leh marka waxaan jeclaan lahaa buu leeyahay inaad adna waxoogaa deesh qurxiso dhoobadan iyo kabahanad gacmaha ku sidaatiya baabkan inaad bedesho Umar wuxuu ku lahaa law ghayraka qaalaha ya adiga cidaan hayni ma tiraa yani adigu saxaabadii nabigu ka dhintay isagoo raali ka abad ka tirsatay amiinu hada umma baata cidaan adiga hayni haday warka ku hadlahayd waan ciqaabi lahaa buu Umar tilmaamaya waa weedhu lahaa xaakim soo warinayo ee culimaduna xasan ma saxiix ku tilmaamayaan waa ku lahaa nahnu qawmun azzana Allah bil islam ana gudul baanunay ilaahay uu ku sharfay ku weyneeyay diin wax kale hadaanu sharaf ka raadino ilaahay waa naduleynaya buu leeyahay mariyaha iyo protocolka iyo waxa anaga nooma aha buu leeyahay wax weyn ee diin baa ilaahay sharaf nooga dhigay diintaas ciisadeedu ku xidhantay Umar sidii buu ku yimi nimankii Carbeed taariikhdu wax badan bay ka qoraan wadaadadii meesha kala kulmay Kristanka ah adigu Umar waxay ku casuumeen barkaale kiniisada arag baa leeyahay كنيسة القيامة كنيسة الله يرحمه ولد سن أيو عمر صاقله وقت صلاة باو صاقله مركا أين أصلي بيجي مركا وأرحجان كنت كذا
ninkii batriirka wadaadkii kiniisadda ka talinaya waxa uu yidhi dee halkan ba iskaga tuko cumar nin dheer garadaa buu ahaa oo yidhi waan halkan haddaan ku tukado berri bay odhan doonaan waa halkii uu amiirulmu'miniinka iyagu u tukaday oo kiniisadda way kaa qaadi doonaane meel dabadda ii tilmaam wuu ka baxay waxaa la yidhaahdaa in dhagax la tuuro in leeg buu u jirsaday oo uu ka soo baxay kiniisaddii dabeetana halkaasuu ku tukaday waa meesha 3 masaajid baa taariikh ahaan ku ooli jiro oo masjid Umar lagu tilmaamo waa mid ka mid ah markaa midna beri dambaa la dhisay midna waa kuwa isagu dhisay salaadii markuu tukaday kadib ayuu wuxuu yidhi masjidul aqsa meeshuu yahay meeshan kristan baa jooga kristanka labadii kiniisadooda hore ee tii katholiga ahayd iyo tii orthodoxka ahayd markay isku jireen iyo markay kala baxeenba yahuud col bay la ahaayeen waana layn jireen umanay ogoleen baytul maqdis inay degaan qibladoodii iyagoo markaa raba inay ku xumeeyaan daraaddeed ayay masbala ka dhigteen waxay ka dhigeen meeshii meel qashinka iyo kudaafadda lagu daadiyo cumar wuxuu yidhi masjid al-aqsa ay tusa waxaa la yidhi waa kudaafadda meel kudaafadii taallo ayaa loo tilmaamay wuu yimi meeshii buu kudaafadii inuu nadiifiyo bilaabay muslimiintii la socdayna waa la nadiifiyeen u nadiifiyey markuu nadiifiyeyna masaajid yar ayuu ka dhisay oo waxyaabo yaryaraay wax lagu dhisi jireen sarabkii iyo wixii la mid ah waa masjidul aqsa markaa markii koowaad ee dib loo soo celiyo intii hore ambiyadii hore dhistay ama ku dagaalantay ama boqorrada ka ahaan jiray sida nebi daawud iyo nebi sulaymaan iyo qadiyadoodii waa baaba'day waana tan markaa ay ka dhigeen nimanka kani meel kudaafadda lagu daadiyo ama qashinka lagu rido waqti may ahayd waqtigaa muslimiintu ay meesha furteen taariikhyahanada islaamiga wax kala gedisan bay sheegaan مثلا الإمام الطبري ابن الجوزي ابن كثير كواسو دمي waxay leeyihiin 15 hijriyada ahayd إمام الذهبي isagu wuxuu ku tirinaya xawaadistii sanadkii 16 waana qowl إمام الطبري nawariyo البلاذري في كتابه isagu wuxuu oranayaa 17 hijriyada ahayd على كل حال waqtigaas baa la furtay heshiis baana lagu furtay heshiiskaasi wuxuu qorayay بسم الله الرحمن الرحيم سيدا إمام الطبري وسوري ارتهشيس سقو قرن بولي الله العهد العمري سقو قرن أي ولي الله والهلية إمام الطبري سقو بركو سائر ورني وحلي وحق قرى ومصطفى دباغ بفلي أي وقوة صار نقلنا إمام الطبري تاريخينا ظهر المسلمين وحلي وحق قرى بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان كان ووحي عهد هشيسكي ولقلي عمر إلهي أدون كيسية مؤمنين تأمير كودية غير إلياء وإلياء وبيت المقدس وأين أمان وهلان نفتودا مال كودا كنيسة دودا إيوه صلبان دودا با كرس كودا مع طبيعة دودا مع طبعانا باتشري ودو وقته سامحين وحكت البرامج دونها كيدا هذان كي عيسى اللي قدر دلي ويان وسجار هاي وحود أردن اللو دايو وحكى له وعهد وقرا كنيسته هذا إن للدومين كرين لندقي كرين يقولين إليين مسلم كله إن ندقيننا دومين كريننا dhulka ay leeyihiin karaystooda iyo waxaas iyo saliibkoodana wax ka mid ah inaan laga nuqsaamin wax xoolahooda ka mid ah inaan laga qaadin diintooda inaan lagu qasbinay xor wahaadaan qofnaba inaanu iyaga dhibin heshiiska waxyaabaha ay ku darsadeen Umar kula heshiiyeen waxa ka mid ah wala inaan wax yahuudi la soo degin meesha hadu qariibayu مسيحينتي وريالك يهودا كتاغنايين يكون دنبه halka ka taagayeen way tilmaami doonaa heshiiska waxay ku darsadeen inaan magaalada Bayt al-Maqdis la soo degin cid yahuudi haba yaraatee intaas waa intii iyagu ay lahaayeen dhanka kale ahlu Ilyana waxa la yiri
وين الجزية بحيان وين مقالة كساران رومانسكا يتوك تباع وقرا الدولة دي الرومانسكا الرجل كترسن إيو لصوص تودورنا وين مقالة لقى سارة عدي ربطين يبحضه dadka magaalada ka degana waa loo ogol yahay inay baxaan xoolahoodana waa qaadan karaan cidda beeralayda rabta inay iska joogtaa jizyada ay bixinayaan waana joogi karaan waxaana jizyada laga qaadi doonaa waqtiga beertu ay u goodo ayaa laga qaadi doonaa marka waxay leenahay awal qissa ku saabsiisan bayt al-maqdis iyo furashadiisi xilligaasi dhowr iyo 10kii hijriyada Umar talinayay إلا 600 دوري صدق اللي هي صدق تضوي صدق مالهاسي أي كعنت مسلمين تسوقش مساجد يربكوا اللي تري مركها قال إذا معاوية وقت يسوى مساجد يرى لا يرى بلاري لكن مساجد يرى اسمه فضوضة أي كوا اللي تري ماشي صخرة الله إذا هذا قبضة وين صارت يدو مر السنة أحد يجي مكين لسوق قاري دولة الأموية سيبا عبد الملك بن مروان نكي لو رجري وقت كي سيما كي لسوق علي أيام مساجد كي دسميسي وحكا بدل قوة بلاب عمر يساق وقت كي سي صخرة حديث إمام أحمد ورينيو عمر الرجل لتشوقي ماشي تشوقي وحكام إذا كعب الأحبار نكي لو رجري كعب الأحبار واني يهودية ومسلمة كعب الأحبار بو حكويري وارحقاد واركتا إنا كنتو كدو أين ترى نصلي هل كي قلت إنا كنتو كدو وقاسوحو كعب الأحبار يري وحفي عن صخرادو إنا يحقو هورينا قحكتا صخرادو قبلدي مركا إلى هايين قلدي هوري صخرادو يو مساجد كي وحاسينا يحقو هورينا قحكان قداشو دا إنا الكسو تكنو وكعبدي إنا مركا يحقا إنا قسي وذا حكتو عمر أرنت أودي دا وحكويري ضاهيت اليهود ولي يهودي بعد عمل كودي وضابو لي شغل يهودات بعد وضاه مركا وكسو هورو مري حاجه دمك جموس تغير وكسو هورو مري صخرة أنا وحيس كبرية حاجه قداله حاجه هورو كنت كدي halkaas ana laga dhisay marka kiniisadii masaajidkii laga dhisay oo taariikhda markaynu soo koobno ahdigii ninkii la oran jiray Abdul Malik ibn Marwan oo وعهدي حق كلنا مكة يدركنا وقبصدي عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير بالمسلمين تبايع على قليل وحانو عبد الله بن الزبير مركا قبصدي حجاز سودان يمن عراق دركا سودان ولدن أمويين تا مركا شام يو مصر يميلها ساكو هردي ان ددكي يمادا meesha la yiraahdo Makka ama soo xaj taga inta badan bay'aysiin jireen عبد الله marka uu shakiyay in reer shaamna haday xaj tagaan أي بيع عبد الله السيان مركز بلابي حديث إمام الزهري لا تشد الرحال إلا 3 عام بحيه أن نسمنا وكبلا ببيت المقدس أو ضدك إلى هذا بوليتيكالي سجوا وجهده حقا بالشريعة وشيء يساوي هلا تبو بيت المقدس مركز وانكي وهو الريال اسمها عصب كبلا به الإسلام كان لسي قبة الصخرة ما شاء الله يقام كدبنا إن كيسي وليد بن عبد الملك أياد اسمه سي قروح بديي أو سي وينيي سيدا يعقوب في كتابه وكقريه أن علماء تاريخنا أنت بدن كسر نقلنا هذا أنت لا يراه بيت المقدس كمساجد كأنت لا يراه وإن أيكورك سين هيدير وككوبية مساجد برحد قبة الصخرة مساجد كواحد كله حجرة أنت عمر دسي مسجد العمري أنت صعدان دير بسكورك سن أنت ساوى حلا إلى هذا الحرم أما حرم بيت المقدس حوالي بقول يس كوبي أفرتم كونون متر سكوير وحكون دوية مركز سوق على تاريخ ذا ميلادي تضاء بقول يتضوي أفرتم كيو كل دو بقول يصدق كيو ولي الدولة الأموية وقت جدية وهكذا عاي زلزال earthquake بعد عاي يبتنا مساكت كوا دمدمي الدولة الأموية ساسي كنا ماتي عهد جديد وحيمي الدولة العباسية أبو جعفر المنصور بمشي يمي
boqoliyo koob iyo afartankii hijriyada dadkii waxay u sheegeen masaajidkii iyo meelihii inay dundunsan yihiin marka inuu dhiso dahabkii iyo fidadii iyo wixii ay ku qurqurxiyeen intuu ka fujiyey oo la cageeyey ayuunbuu dib ugu dhisay dabeetana dib uu hagaajiyo masaajidkii dib uu dhisay zilzaal kale haddana dhacay baa la yidhaahdaa 158 hijriyada meelaha ninankiisii mahdiga la odhan jiray almahdi ibnu mansuur ayaa isaguna dib u dhisay zilzaal saddexaad baa haddana 216 meelaha ka dhacay ma'muun ninkii la odhan jiray dowlad cabaasiya ka tirsanaaba haddana dib u dhisay qudus intaa horoo dhan dowlad cabaasiya bay gacantooda ku jirtay taariikhul islaami saynu naqaano dowlad cabaasiya gobollada raggii haystay qaar ka mid ah goostay oo nin waliba meeshiisii calan gaara ka sii taagay raggii goostay waxaa ka mid ahaa axmed ibnu tuuluun ninkii la odhan jiray oo masar goostay kadibna qudus iyo intaasi oo dhamme ay gacantiisa soo gashay mudduu isna xukumayay 265 ilaa 294 soddoneeyo sano kadib waxaa qabsaday ikhshiidiyiinta nimankii la odhan jiray 327 ilaa 359 ayay iyana xukumayeen qoladaasi iyagu waxay ku dardaarmeenba masar bay ka talinayaan haddana meydka boqorradooda oo dhan waxaa la geyn jiray بيت المقدس هكذا لو اسجل وقت كدب صدق بقول يسقال يكونك وحي كدب بيي ما قبصدي دولة شيعة وإسماعيلية باطنيين وفاطميين لو رجري أما عبيديين لو يراهدو أيا مصر هي الشام ودن قبصدي نمانك الشيعة دي انت بدن مزارات هي ميلها اللبوغدي وحاات بيغور قرحيات مساجدك وقتك أصوب بلا ما يقرحنتي سترد بدن له iyo dahabadan iyo waxa lagu dhadhajinayo iyo alqubba sakhra mudday qurxinayeen 407 haddana markay taariikhda hijriga maraysay baa zilzaal afraad ka dhacay qubada soo duntay malik al-zahir al-fatimi ayaa isna dib u dhisay zilzaal shanaad baa haddana ka dhacay al-fatimi al-zahir kaasa dib u dhisay masaajidku muddadaasi gacanta nimankaas ku jiray marka la soo gaadho 489 hijriyada ama 1096 oo ay nimankaasi faatimiyiinta la yidhaahdaa meesha haysteen ayaa waxaa bilaabmay dagaalada loo yaqaano al-xuruub as-saliibiyya xuruub as-saliibiyya waa dagaallo ay yurubiyanku ku soo qaadeen caalamul islaami dagaalada ay soo qaadeen waa xilli dowladdii shaam iyo bayt al-maqdis dowlad salaajiqa la yidhaahdo gacanteeda ay soo gashay oo asalkoodu turki yahay faatimiyiintii waa la soo riixay laakiin niman ataabik la yidhaahdaa soo baxay ataabik waa wasi waa alabil wasiy ay af turkiga ku yahay tuulo kasta ama gobol kasta nin baa calan ka taagtay oo madax sheegtay gaarna isu taagay iyaga dhexdooda dagaallo badan baa ka socday oo midba miduu meel ka qabsanayo taasi waxay hunguri gelisay nimankii reer galbeed dabeetana waxaa bilaabmay xuruubta loo yaqaano al-xuruub as-saliibiyya 8 dagaal oo kala dambeeyey oo 195 sannadood soconayay oo yurubiyan ku soo qaadeen oo caalamul islaami ku soo qaadeen weeyaan dagaalada waxa ku samaysmay imaarado ama magaalooyin iyo inay ka taliyaan oo dawlado yaryara sida dawladdii la odhan jiray imaaratu ruha waa magaalo hadda turkiga ka mid ah imaara intaakiyana waa magaalo kaloo turkiga ka mid ah iyo mamlakatu orshalim ama mamlakatu iliya mamlakatu alqudus bayt almaqdis oo gacanta masiixiyiinta gashay dagaaladaas waxay ku bilaabmeen boob ka mida boobabkii nimankaasi gaaleed oo la odhan jiray orbaanka labaad ayaa mu'tamar ay isugu yimaadeen wadaadada kristanka ee magaalo faransiiska ku taalla oo Clermont la yidhaahdo ayuu khudbad ka jeediyey
khudbadaas uu ku dhiirigelinayo in muslimka dhulkiisa la weeraro oo bayt al-maqdisna dib loo soo celiyo dagaaladaas sideed ah intaanay bilaamin shacabkii wadaadka khudbadiisii baa la qaaday Yurub baa lagu faafiyay shacabkii badhbaa iska sii xamaasadooday wadaadda iyo niman qowlaysata iyo waxba israacay dagaal baabay soo bilaabeen intaan kii munadamka ahaa bilaabmin xuruub iska shacbiya baa soo bilaabantay oo beeraleydii Yurub la soo kiciyay nin la yiraahdo Walter al-Muflis watarkii caydha ahaa mid la yiraahdo iyo oday wadaadoo la yiraahdo Butros الناسك بطرسكي صوفيغا ها لا يراهدو labada nin baa hogaaminayay iyagu xamladoodii dad badan bay soo ururiyeen waxay ku bilaabeen intaynan muslimka gaadhaan yahuuda sii marino wabiga Rhine la yiraahdo Jarmalka iyo dhulka dhexmara oo ahaan jiray dhulkii caanka ah ee fallaaxiintu deganaan jirtay wixii yahuud joogtay cagta sii mariyeen dabeetana waa ka soo tallaabeen markay Majar iyo Bulgaria marayaan meelaha kan boqoradii meeshan joogay iyo dadkii bay istileen waa qayb ka mid ah la soo talaabiyay Constantinople Istanbul meeshan hadda la yiraahdo bay u yimaadeen boqorkii Romanska jooga Alexios la yiraahdo isna nimanka rabshadooda hore isu dhaafi buu isido wadaha loo baneeyay buu yiri bayt al-maqdis iyo dhanka qabtaan meeshaas isku soo maqiiqeen laakiin qolada markiiba waa la laayay ما ينقونين دت سو قاعدة ماشية حيدا دان عيدا كودي 3 و 4 باقواي وهي ما يهين دت وبرا بيرادا فلاحين هون لسوك عيي ولا حماسات قليه بهاي هل كاغو حكا الدنباية وحابلا مي دقالة دي ليرادا الحروب السليبية كي كوات وافر نينو عاني هقامين ايان ريموند كي افراد نين ليرادا oo gobol la haystay Kodab foreign la yiraahdo oo isna qayb kale haystay Bahmud la yiraahdo oo qayb kale haystay iyo Tancred afartan nin ciidamo ay wataan oo boqoradii Yurub afar nin oo kamida oo ciidamo Yurub laga soo ururiyay oo ka kooban 19 jinsiyadood oo Yurub ah 19 jinsiyadood oo Yurub ka kooban oo 7,000 oo dagaalyahan wata sidoo Edward Gibbon sheegayo ayay soo weerareen caalamka islaami meesha Antakiya la yiraahdo ay qabsadeen meesha markay qabsadeenna waxa la leeyahay wixii dad joogay dumar iyo carruur iyo cid walba waa gumaadeen waa 400 iyo 190 horay u soo socdeen bayt al-maqdis bay qabsadeen ama meesha qudus la yiraahdo qudus markay qabsadeen Stephen Runsman ninka la yiraahdo taariikhyahani sida uu ka soo noqlinay Gustav Le Bon fi kitab Hadarat al-Arab magaalada joogtay muddo kadib dagaaladu markay dhaceen way qabsadeen dadkii oo dhan way gumaadeen wixii ay la kulmaan ee rag ah ee dumar ah ee carruur ah ee cid walba qofnaba may dhaafin buu leeyahay muddo dilkaasi socday hatta qaar baa meel galay 3 maalmood bay dagaalamayeen kadib ammaan baa la siiyay ammaanka waxa loo dhiibay marka calam sitanin Tancred la yiraahdo Tancred waa Romandiyiinta waxa la yiraahdaa asalkoodu waa Vikingku waa North Europe Scandinavia kan dhulkan la yiraahdo qowlaysata ka dilaacday oo Yurub oo dhan weerari jirtay oo badda dhici jiray dadka maraya waxaasi oo Yurub ku soo qaaday meelaha ay ku soo qaadeen Andalustii muslimiinta kamid ah Ishbiliya dhulkaasi dhulka ay ku soo qaadeen waxa kamid ah Ingiriiska marbay qabsadeen qaybo badan oo kamid ah Faransiiska qaybo kamid ah marbay qabsadeen Faransiiska boqorkii joogay wuu iska muslaxay dabeetana gobol buu dajiyay gobolka Normand la yiraahdo ee Faransiiska asalkoodu waa nimankaasi waxay iska noqdeen niman askar ah oo qowlaysata oo wax dila ninkani qaybtaas ka tirsanaan jiray Tancred baa la yiraahdaa waa qayd saliibiya oo caana muslimiintii markaa meesha tan waa qudus nimankii soo weeraru ku jira ammaanka cidii uu siiyay calankiisa hatta calanka laguma nabadgelin buu tilmaamaya Stephen marka uu ka warramayo ee kuwaana waa la gumaaday gumaadkaasi wuxuu gaadhay baa la yiraahdaa xawaali 70,000 muslim bay madaxa ka jiray
kun oo dad ay madaxa ka jareen wadaad iyaga ka mid oo sifaynayaaba wuxuu leeyahay meeshaas sidii loo galay buu leeyahay waa nin raahiba weliba meeshaas sidii loo galay buu leeyahay wax kale ma arkaynin madax la gooyey gacan iyo lug carbeed oo meel taalla qaar la gubay يعني wuxuu sifaynaya siday wax u galeen وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها بورنيا سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم وحكى لما ذكر بولي مضحيه يقعمو يلغى عربيد موياني هذا استلاذ الصعب ويرميت كركي ومبات كتلابيسا وحيدا هدان يقول سيدا وحلايي أي هدانا فرسانتي سليبيين شرق بصدين مالنتي دنبه shirkana waxa lagu go'aamiyay wixii magaalada noole ku haray hal laayo muddo haddana wixii dambe meelaha ku dhuuntay iyo wax walba la leeynay iyo 99 taariikhdu markay mareysay baa markaa meeshan laga aasaasay imaara Godfrey Napoleon nin la yiraahdo madax looga dhigay ilaa iyo muddo 9 sanadood ku dhow bay haysteen taariikhda balbalaarinteeda ninkii u baahay ibn al-Athir oo sifaynaya meesha iyo wadcigeedii iyo sidii la dadka loo galay iyo sidii wax loo laayay waad akhri kartaa ama waa milicsan kartaa 9 sanadood oo hijriya ama 8 sanadood oo miilaadiya markii ay meesha ka talinayeen ayaa caalam islaami waxa ka bilaabmay saxwa islaamiya dambe dawladii عباسيين توي دبعدي gobolladii dad baa iska wada qabqabsaday dadku maadiyiin bay noqdeen aakhira iyo fikradeedii waa yaraatay culimo islaaxiyiin oo dadka diinta dib ugu soo celinaya oo aakhira xasuusinaya oo ilaahay baraya iyo say u caabudi lahaayeen ayaa dib u bilaabmay waa casriga ay bilaabmeen sheekh cabdilqaadir aljiilaani iyo إمام الغزالي رجاسي الثورة الروحية بيبلابه إن دب الله صارنا عليه ضدك المسلمين تها سحوات وبلعنا بعد نلاطي مركزي وضدك الإسلام نمدي دب وسوع عليسي وحيد هذا بالآلاف بيدك وطابت كاننا من مئات الآلاف بيد هذا علماء التاريخ أي وقت جاء دب وطابت كاني وطريق الصحة قصار نقضي ودينتي كل نقمي وشرع غير راعي ونبتيرات ثورadaasi dambe ama islaaxa dambe ragga ku soo kacay madaxda aha waxa kamid ah markaa zanki ibn aqsan qarnin la yiraahdo culimada taariikh waan ka yaqaaneen Imaaduddin Zanki waxa loo dhiibay ataabikti Mosul ama magaalada Mosul la yiraahdo Iraq ku taala iyo agagaarkeedu qabsaday nin geesiyo dagaalyahan uu ahaa nin cibaado badan buu ahaa dabeetana dawladdiisii uu sii ballaadhiyay شام إن بدنو كمدا صوغا شيء وحلب يا حما يا حمص يكوس كمدي كريستن كنت قال لا قال إماراتي يصدق دايها إنه الشجرة متكمد الروها إماراتي لورن جريبو ديبو سو علي يسقو دقال سي وضع مركزي أي اغتيال وسمي لما كي باطني تاقار كمدا بين هذا أدو ويل يرو شقين يبا الوصبة هبين سقو هردا أي اللي dawladdiisii waxa qabsaday waa soo koobayna Nuruddin Zanki nin la yiraahdo inankiisiya Nuruddin waa nin geesiya oo caabida oo zaahida oo islaamka jecel iyo inuu dib u soo nooleeyo hammigiisa ninkaas wuxuu isagu isugu geeyay Bayt al-Maqdis sidoo dib ugu xoreyn lahaa ay culimada taariikh tilmaamaan isagoo Bayt al-Maqdis ba xoreynin ayuu minbarka sii samaystay منبركي بيت المقدس ونور الدين زكي وسمي صلاح الدين مركز دنبه جاين دونه وحل قبي 1969 ايو صهيوني مسيحيو ولا شيء استراليا 1969 مركي حرب جون لقب صدي قدس بلهي كحيجبو اوغست بان رجيني اوغست كوبي لا تكيدي ميلها سيبو قبي مسجد الاقصى وقتها سو لقبتي بالله جبنا الله ما يصلحه على كل حال نجا نور الدين زكي الله يراهدو همجيسا وحي isugu geeyay Bayt al-Maqdis sidoo dib ugu xoreyn lahaa arinta isagu ba u xidhan ba waxa dhacay Bayt al-Maqdis boqorkii hore haystay balduuyinta kuwii la oran jiray baa dhintay Amur al-Awwal in la yiraahdo qabsaday
dabeetana wuxuu bilaabay inuu isagu muslimiinta ba weeraro wuxuu go'aansaday inuu dawladdii faatimiyiinta ama cabiidiyiintii masar ka talinayay oo jilcay inuu weeraro oo masar qabsado boqorkii faatimiga ahaa ee meesha joogay ayaa wuxuu ka dalbaday nuuraddiin zanki ciidamo taageero oo muslimiin ay loo soo diro nuuraddiin zanki wuu aqbalay inuu nimanka masiixiyiinta joojiyo dabeetana ciidan buu u diray laba nin oo isu adeeray hogaaminaya waa asadudiin shiirakuh nin la yidhaahdo iyo inuu adeeru yahay oo la yidhaahdo salaaxaddiin al-ayuubi labadan nin ciidan ay hogaaminayaan buu u diray ciidamadii masar bay tageen nimankii kiristaanka ahaa waa difaaceen laakiin boqorkii faatimiga ahaa wasiirkiisiibaa wuxuu yidhi waxaan ka cabsi qabaa nimankan inay meeshaba inaga qaadaan oo masar ay qoladaasi qaadato weer runtii aad taariikhda u gasho caana buu ku hadlay ninkaas wuxuu yidhi in kaana mulkii sayadhab wa masar satasqud xataa haddii buu yidhi boqortooyadaydu ay baaba'ayso oo masar la qabsanayo anigoo faraxsan baan dhimanaya masar inay gacan muslim gasho halkay gacan kristaan ka geli lahayd buu leeyahay yani intuu kristaan qaadan lahaa kuwan sunniyiintii ha qaataan buu taagay marka wasiirkiisii iyo warkiisii muu aqbalin ciidamadii muslimiintii meeshii waa xoreeyeen kadibna nuuraddiin zanki intii aan qudus la xoreyn buu sano geeriyooday iyo mimbarka u samaystay isagoo la xoreyn buu geeriyooday salaaxaddiin baa meeshii lagaga yimi odaygu adeerka wuxuu ku noqday markaa muusil salaaxaddiin dadkii waxaa la yidhahdaa nin siyaasiya oo xanaka badan yani farsamo fiican sabir badan aayar socoda cibaado badan geesi goobta dagaalku abuu ahaa ma degdegin wuxuu isku dayay waddankuun inuu islaaxiyo boqorka faatimigana meeshiisa inuu joogo boqorkii faatimiga waxba ma yeelin waddankii buu islaaxiyey taasi waxay keensatay culammadii iyo dadkii waddanka degganaay oo dhan inuu hanto kadib uu geeriyooday sidiisa u geeriyooday ninkii meesha haystay wax carruura ilmo yar buu ka tegay ilmaha yar boqorka laga dhiga baa la yidhi oo ilmihii buu diiday markaa kii yaraa inuu boqor ka dhiga buu u diiday salaaxaddiin saasuu meesha ku qabsaday muddo kadib salaaxaddiin al-ayuubi dagaalluu diyaariyey isagu muu aqbalin inuu dowlad madax bannaan samaysto laakiin wuxuu yidhi khudbadda jumcada waa tan loo duceeyo boqorka meesha haysta ha loogu duceeyo khaliifka cabaasiga ee jooga baqdaad haysta sidaasuu meesha ku qabsaday dagaalluu markaa bilaabmay boqorkii qudus haystay wuxuu aqbalay inuu muslimiinta heshiis la galo 2 sannadood hudnaa in la galo wuu la qaatay laakiin waxaa jira nin habaaqabo kaloo la yidhaahdo rino de chatillon ninka la yidhaahdo culamada taariikhi lmuslimiinna arnaat iyo arbaat iyo magacaynkaas ay u qoraan ninkaasi waa faransiis waa nimankii xarbu saliibiya athaniya buu isagu soo raacay tii qudus lagu qabsaday xurubtii ka dambaysay buu soo raacay dabeetana nin farisiya buu ahaa nin geesiya oo dagaalama boqorkii antaakiya haystaa dhintay gabadh baa qabsatay gabadhii buu guursaday meeshii buu boqor ka noqday muslimiintu weerar ku soo qaaday nimankii salaajaqada baa qabtay waa la xidhay 17 sannadood buu xabsi ku jiray xabsiga markuu ka soo baxay kadib ayuu haddana nin uun dumarkaa iska guurguursada buu haayee urdun qayb ka mida gabadh masiixiyada oo haysata buu haddana guursaday meeshii buu boqor ka noqday kadibna wuxuu bilaabay inuu muslimiinta weeraro xujaajtii muslimiinta ee shaam ka timi ayuu dhexda u galay wax la laayo iyo wixii ay siteen oo boobo buu ka dhigay salaaxaddiin oo markaa hudna kula jiray wuxuu yidhi hudnadii waa baabi'iseen muslimiintiina waa layseen markaasuu bilaabay salaaxaddiin inuu ciidamo u urursado sidii uu qolada tan u weerari lahaa weliba kani wuxuu isku dayay inuu dhul badan oo muslimiina qabsado ilaa xad wuxuu soo galay bay yidhaahdaan meeshan muwaylix la yidhaha muwaylix waa magaalo yaroo tabuuk korkeeda ku taalla badda cas hadda sacuudiga xukuma waxay ahaan jirtay degadii qadiimka ah ee muslimiinta dhulka ka yimaada ay markay safarka yihiin ay soo mari jireen
dekedaasuu qabsaday wuu soo dhaafay deked kaloo Suudaan ku jirto qabsaday waa soo dhaafay cadantan ciidamadiisii qayb baa timi markaasuu bilaabay Salaaxadiin inuu ninkan iyo ciidamadiisa ka takhaluso dhagan buu ka soo xoreeyay nimankii gaaleed xagga sare isugu tageen dagaaladii markaa Shaam baa bilaabay ayaa bilaabmay Salaaxadiin iyo nimanka kan u dhaxeeya Salaaxadiin dagaaluu soo galay waa soo qabsaday kadib ayaa waxa la isugu yimi macraka muslimiinta iyo nimanka gaaleed dhex martay oo meel Xitiin la yiraahdo Xitiin waa tuulayar oo 190 kiiloomitir u jirta magaalada Qudus la yiraahdo rajaynaya halkaas dagaal ka dhacay 583 hijriyada ama 1187 miilaadiyada markay mareysay dagaal adag buu noqday muslimiinta uu Salaaxudiin wato 12,000 oo askari waxa military u tababaranay waxoogaa mutatawiciin oo shacaba waana imka macawsleyda tirahdaan oo kala tira badanina waa iskala socdaan 12,000 askari iyo gaas dhagoolaha kale isagoo wata ayuu soo dagaal galay faranjiga meesha waxay yiraahdaan ilaa 50,000 qaarkood waxay yiraahdaan 63,000 oo askari bay wateen waliba waxay kaloo wateen bay yiraahdaan si dadka loo dhiirigeliyo saliibka nadii sheegaya saliib salbuut baa la yiraahdaa saliibka salbuutka oo ah kii ay leeyihiin nabi ciise lagu salbiyay wixii ka hadhay kaas bay sitaan waxa hogaaminaya labadii boqor laftoodii boqorka Urduniya meelaha kan qayb ka mid ah haystay ama kark haystay oo ah reeno ninka aan sheegaynay iyo kii markaa Qudus haystay labadii boqorba dagaalka way hogaaminayaan goobtaas la isku haleelay laakiin dagaal adag kadib markii hore biyuhu ka qabsaday buxayradan Tabariya la yiraahdo qabsaday eetana biyuhu dhabarka iska mariyay ciidankii gaaleed waa biyo waayeen dagaal baa la wada galay Xitiin meesha la yiraahdo ayay ku jabiyeen muslimiintu xawaalay 30,000 oo askari way dileen bay la yiraahdaa 30,000 maxbuusnimo loo qabtay nimanka maxaabiista la qabtay labadii boqor baa kamid ah markaa Salaaxadiin leeyahay macalabadoodii boqor ayuu maxbuusnimo u qabtay labada boqor mid wuxuu yiri isaga waa la dilayaa ninkii xujaajta laayay boobay ka isaga wuu dilbu ku qaaday kii kale gaayda lusinan nin la yiraahdo kale oo Qudus ninkii haystay isaga wuxuu ku yiri waa ku sii deynaya laakiin bi shart inaad France ku noqonayso inaad caalam islaamiga gaarkiisa baad ka guurayso xagga aad ku noqonayso yaa waayahay buu yiri tiibo aqbalay aduu France muu gaadhine Qubrus iyo meelahan buu degayo wax ka amaamutay oo dambe laakiin uu ka baxayuun caalam islaami intii markaasi ay ka talinayeen dagaalkaas uu sii waday markuu tuulada yar Xitiin ku jabiyay Golan buu qabsaday buurahan Golan Heights la yiraahdo gaarkood oo dhan Urdun buu qabsaday Tabariyu qabsaday Akka buu dib u soo furtay dagaalku sii waday Saydaada ku taala maxaa la yiraahdaa Lebanon kamid oo qabsaday Beirut buu qabsaday Gaza qabtay magaaladan inuu hadda la isku dilayo Asqalaan buu qabsaday meesha Yahuudu hadda haysato Nablus buu qabtay Bisaan buu qabtay Ardul Ghawr oo dhan buu gacanta ku dhigay wixii ay mushrikiinta ama masiixiinta si gacanta ku hayeen oo dhan marka Antakiya laga reebo intii kale oo dhan wuu qabsaday kadib buu Bayt al-Maqdis weeraray markuu shaabti kale oo dhan soo qabtay ayuu Bayt al-Maqdis weerarka ku qaaday xisaar 14 cashaa markuu ku hayay kadibna oo dhulka kale oo dhan ciidamo u diray meesha Ramla la yiraahdo Bayt al-Laham Madiinatu al-Khaliil Bayt al-Jabrin waa magaalada Falastiin ay sheegayno dhan markaas uu dhamaantood wada xoreeyay waxa la isugu yimi markaa nasaaradii meesha Bayt al-Maqdis la yiraahdo kadibna iyana way sidibeen amaan buu siiyay wixii meesha joogay shuruuda amaanka waxa kamid ahaa markaa inay jisyo bixiyaan ninku 10 diinaar ilmaha yar 2 diinaar gabadhu 5 diinaar waa head tax inay bixiyaan wadaadkii kaniisada ugu weynaa isaga wuxuu ogolaaday xoolahagana waad qaadan kartaa waana bixi kartaa 10 diinaar uma iska bixinaysa
xoolaha muslimiinta ka dhaceynaya wixii oo dhan intuu urursaday ayuu yidhi iska sii daaya waxay ku tilmaamaan salaaxaddiin nin aad u dabacsan buu ahaa marka uu guulaysto yani nimaan inta badan culamada taariikh markay ka warramayaan waxay isbarbar dhigaan salaaxuddiin markuu qabsaday baytulmaqdis siduu ka yeelay iyo nimanka masiixiyiinta ahay markay qabsadeen siday ka yeeleen iyagu markay qabsadeen wax nool may sii daynin 70 kun oo qof bay dhigta dhiiga u dareen salaaxaddiin markuu qabsadayna cidna ma dilin dhammaantood ammaan buu siiyey jizye inay iska bixiyaan oo qura buu ku xukumay waana iska tageen dhanka kale marka la eego 12 طبيب oo yahuudiya isaga la socday salaaxaddiin nimanka la socday waxa kamid ah طبيبka caanka ee la yiraahdo Musa ibn Maymun dhanka kalena waa wadaad weyn oo wadaadada yahuudda kamid ah hatta yahuudda hadda joogta madhabkiisa qayb badan baa wali haysta oo madhabkii Musa ibn Maymun haysta laakiin yahuuddu marka de waxoogaa yar isaga la socdo bay haayeen may jirin yahuud hore meesha sii degan waayo nimanka kristanka ah ayaa dhammaantood iyaga baabi'iyo ka saaray yahuudda ugu horeysay marka meesha timaada waa groupka yar ee la socday salaaxuddiin ee dhakhaatiirta iyo waxaasi u ahaa madaaris caan oo la yaqaan buu ka dhisay oo madaaristii siiba madhabka shaaficiga culimadiisa waaweyn madaaristay joogi jireen sida ibnu shadaad qaadi alqudaat ibnu shadaad ninkii la oran jiro kale ibnu casaakir oo kale ama ibnu salaaxa culum alxadiid oo kale أما إمام القراء محمد بن محمد الجزري المغري صاحب النشر في القراءات العشر رجع صورنا من مدرسة هينجر هو مدرسة ولسي محي صلاح الدين الأيوبي علومتي إسلامي هيد بدي بسور نوليين منبر كي نور الدين زكي ولسينا موصل بكسوق هذا تبع تنوع حقوق لسي ماشي إلى يو 1969 منبر كالرسم جاي ماشي ياله وحاكا ونور الدين سبي markii uu dhintay salaaxaddiin kadib imaam caadila oo dadka si fiican ula dhaqma oo maamula buha markuu dhintay muslimiintu runtii meelaha ay kulliteen waxa kamid ah qaabka dawladnimada la isugu wareejinayo system fiican kamay dhisin system dhaxaltooyo iyo booba buu noqday waagii dambe بعد الخلافة الراشدة وحي كدنبيه wiilashii uu dhalay iyo ragii isaga walaalahaayeen kuwana deeradooda haba isqabtay wiilashii dhalay laba kamid ah isku dilay kadib kuwa kale ilmaadeeriyiin bay istileen kontaneeya sana bay dhexdooda dagaaladaas ka socdeen waa markay dhacday inuu dib u dhiibaan bayt al-maqdis la siiyo ninkii la oran jiray Frederick الثاني السقلية ماشان لا يرادا سيسلي أيو بقر كاها جرم البؤس الكيسو همان رجينية ودنا دانا قيبو هيستي إيضا دي كدعين بالوريتي شروط يربو قروا بيت المقدس المسلمين تكتليان وحاسنا على السبعين كاننا على السبعين لكن وحسب هذا الترو واقف صدر 19 سنوات أيه هدنا دب مسيحيين وقتلينية الملك الناصر داود وابن أخي الملك الكامل كي ديبي إن أديركية أيه هدنا اللي حبقوا لي قوبي أفرتكي هجيرة دبو فرطي هدنا مرة أديركي استلين يقار لمده أيو دبو قوريتشيه سنة كلاو كل دوبي هدنا هيستين وقتها كدبا وحا فرطي بقركي مصر كتلين جري أيوبي الملك صالح نجم الدين أيوب وانكي لسيني مكان ممالكتا ليلادو اي كتفيرمين نكا سا لح بقول يلا بيا افرتكي لوري وقت قال لغا بلابو الى يلا سو غاد يكون سغال بقول يسيديد يطبنكي اما تضبي طبنكي قدس waxay ku jirtay gacanta muslimiinta waxay qoro gacanta muslimiinta ka baxday 9 ka sano meela iyo dhowr iyo 10 sano meela intaana waxay gashay gacanta nimankii kristanka loo oran jiray waqtiga kadib waxa bilaabmay dawladihii asalka turkiga ahaa ajira dawlado badan oo muslimiin oo asalkoodu turki wadeeyay magacyo kala gedisan laakiin taariikhda ku leh wax kamid ah dawlad al-Khawarizmiyya
bariga ka talin jirtay mamaaligtii Masar haysan jirtay ay ka tirsanaayeen waxa kamid ah dawla al-Ghaznawiya dawla al-Saljuqiyya dawla al-Khshidiyya dawla al-Tawluniyya waxa soo dawladaha ay waa Turki dawla al-Uthmaniyya baa ugu dambeysay oo 5 qarni iyana meelaha kan ka talinaysay mamaaligta waqtigoodii iyo tacliinta iyo waxaasay xoog u dhiseen مثلا Qudus 35 madraso cilmiye bay ka dhiseen meel cilmi badan Muhammad ibn Qalawun ninkii loo jiray waqtigu ka talinayay soo duuduubo waxa soo baxay marka dawla al-Uthmaniyya 512 ayuu qabsadeen intii ka horeysay xagga hore joogeen marka kadib ayay mamaaligta ka qabsadeen meeshii loo jiray Bayt al-Maqdis iyo Masar iyo Hijaz iyo waxa soo dhamay Salim al-Awwal ay gacantiisa soo wada galeen Sulaymaan al-Qanuni baa dabeetana ka dhaxlay duwalkaasi Turkida ah in badan bay caalam islaami ka talinayeen muddo 1000 sano ku dhow 1000 sanadood ay talinayeen in badan bay islaamka difaacay marka aynu soo koobno taariikhda dambe hadaba dawla al-Uthmaniyya ahdigii Sulaymaan al-Qanuni uu haystay 1520 ilaa 1566 ahdigaas loo ogolaaday yuhuudi ugu tirada badnayd inay caalam islaami dib ugu soo noqdaan siiba Turkiga dhulkii uu ka talinayay waa markii kristanku ay ku laayeen Spain iyo Portugal waa markii muslimiinta laga soo saaray wadankan Spain la yiraahdo Portugiiska nimanka kristankii markay qabsadaan meel yuhuudi iyo muslimba way leen jireen yuhuudi markaa waa soo hijroodeen waxa qaxootinimo siiyay markaas ay u yimaadeen dawla al-Uthmaniyya sharti qulu isagu Sulaymaan al-Qanuni ku xidhay wuxuu yiri waxaan idin ogolay dawla al-Uthmaniyya dhamaanteed meesha doontaan waa ka degi kartaan laakiin laba meelood ma ogol inaad degtaan Sinaa iyo Falastiin ma degi kartaan buu leeyahay xoogiyay qadaayad kale oo jira سأوجد وحول السيناء هي فلسطين دقستو دي الموغلي لكن دولك كلا الدولة العثمانية كتل السودان ودقي كرتان وقت الدولة العثمانية كتلين السي ماشان كنت ضواب بقول يسقال في دور قرن كدي بوقت قاسي وحيسكد نابليون إنه دبوا الرشام وقصدوا مقالة عكا لا يرادوا دبوا صور لكن محمد علي مصر كتلين الدولة العثمانية مركاكا قوصان دونا إن كيسي أحمد باشا لورا جريبا جوغي والدفاعي سفي عمبو ودفاعي وحي كتشرتي قعدتي دادك مسلمين تاع مركا لسوق قالوا الدولة العثمانية حق يدي دمبي عبد المجيد نكي لورا جري وكون سداد بقول سقالي كونتكي لا كون سداد بقول كوبي لحدنكي أيا وحب الأبمي مشروعا دمبي يهود يوروب انت لغا سورر ميشن لدجيو نمكا بلابي وحا كميدا لورد اوف شافتسبري ولورد انجليزيا ان بروجرام مشروع بو دجيي وزير خارجيه بريطاني او جيي isagoo ka codsanaya in la dejiyo yuhuuda dhulkaasi muslimiinta in dib loogu celiyo 1850 ahdigu ninkaas ka talinayay waxa kale oo isna mashruuc dajiyay Lawrence Olivier nin la yiraahdo oo isna maxaa la yiraahdaa nimankaasi Britaniyiinta Mareykanku ku dhiirigeliyay inay ku qasbaan mashruucaasi Ingiriisku sameeyay dawla al-Uthmaniyya waa diiday ilaa laga soo gaadho Cabdilxamiid الثاني 1876 ilaa 1909 ضغطigaasi uu socday koow 1881 kiiba waxa Russia ka dhacay boqorkii Al-Iskandar الثاني la yiraahdo in la isku dayo in la dilo boqorkaasi dadkii isku dayay inay dilaan tuhmaada badh kamida ama runahaata ama beenaha ahaatee yuhuud baa dhabarka loo saaray yuhuudda markii dhabarka loo saaray Russia waxay ku kacday yuhuudda in la laayo dabeetana yuhuudii wadanka joogtay waxa ku dhacay inay Russia naftooda kala baxsadaan oo ay ka hijroodaan yuhuudii ugu badnayd qaybo kamid ah marka waxa la yiraahdaa 1 milyan iyo badh dad ku dhadhowba ka soo hijrooday qaybo kamid waxay bariyeen boqorkaasi in meesha tan la soo dejiyo
الدولة العثمانية waxay u ogolaatay waa soo degi kartaan wadanka laakiin Falastiin degi maysan buu Cabdilxamiid qaatay isna go'aana Falastiin ma degaysaan laakiin qaxoontigiina kale waan aqbalaya soo degaan wadanka safiirka Mareykanka baa isku dayay inuu ku cadaadiyo لكن ودي إنني لن أسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين ما دامت الخلافة العثمانية أنت خلافة عثمانية جرتو مرنا بومو قلي كوحي يهود وور ريا فلسطين سوداء كون سداد بقول يسداد يتضوات كيبا على السي مستعمرة يرى ما مستوطن مالي يرى لهنا هذا دجان كم ده وبتاح تكفى الله يرضى بتاح تكفى وأفكوده وفتحة الأمل أي معنى عربتكم ورسابين هذا وماشي كوات أي سود دجان هذا ومجال الصناعي وسيليكون فالي إسرائيل بكتر سنتي وبقول يلي حيط ضباط الكم بعد دجان لكن مركا وحياة هي مال يرو بيرل يوق حنتيه لدتشيو كل سداد بقول يلي بي سداد تنكي يا صدق كونوا يهودي وصورور صدقنا يوروب طبري يهودي كتر سنايدا دبتنا وحي سود دجان ماشان لايدادو ريشون لتسيون وريشون لتسيون هذا ومقالة أفراد وين كتالله ودنك إسرائيل لبحي وحد دجان لو بقول يقاب يكونتم كون دتك بدن أي دجان ومقالة هذا شرتا إلا بقول يقاب يأفرت سنة دود بشرتا صدق لكون يهودي كيمي يوروب طبري أي يرميش سودجي كون سداد بقول يسداد تكي أي الدولة العثمانية قانون صارت أي منعين يسوع مركي كواس دقاق بلابه إن يهودي فلسطين يسوع دكتو إلا إيونين حج ديمدو يمين موياني كوانا وحيد هذا صدق بلاد وقراد ودك تشوي كرتان عبادات هنا مكان ما يستطان وين كبحدا كون سداد بقول اللي سقاشن في مركي مريسي أي مجموعة يهودا وجيرماني كتيمي وفريدمان اللي هذا وهو قامين يا إسكود دايي إني هالكم بسوي دجان مويل حماشان اللي هذا أنشير إني دكدا ير ومركها رأسيسات خديوي مصر كترسد إيانا عبد الحميد اللي حي طبعا كيف فيبر وريكون سداد بقول يلا بيس عشان بقارون كلا صوص صار والشيء جاية إني ما كاسيان مرنا بالله قال إني دول بكي سن كران فلسطين دول إلى دينا يهود لقي يبين كريم نمن كان حقبة يندي بالله صار ولا جعلي هل كان مركا أي مرة يسوع أي واحد بلا مي صهيونية ده واحد لا يراضى زايونيسم كو وأورور يهود ربين وأديبه رجع أساس رسمي جاه يهود معها كريستيان كبروتستان كأبا سيدونهم شو مسكايت المام يا متاريخي أن دبي وهذا الشيء جيان وقت كهر رئيس وقت كان صدق بقولي خطن صندوق أي فكرة دني بلامنتي ودن كإنجليز بارك بلامنتي كريستيان زايونيسم وحلا يرادا اسمه لكن تاريخ كريستيان كدب إنه مركله وعليني هرتس اللي كلا يراهضه ومؤسس كيسهيونية دم بلغة المامو وحي يسكت دايي إنه عبد الحميد الله كلمه وحصاوة استيستين اللي يراهد جاويد بيك ويهودي إسبان كتمي الدونما ماشى الله يراهد يهود الدونما الله يراهد دقني oo qayb ka mid ah ay islaameen ninkaas oo muslim abu wastaystay in loo geeyo boqorka oo kala hadla qadiyada yahuudiya Falastiin waxaanu sheegay 20 milyan oo gini dahabana inuu marka hore minha ay u bixinayaan kadibna aan ogol lahay hanti badan inaan dawladda siino boqorku uu diiday war lana kulmi maayo hadiyadiisana haysta buu waxaa dhacay dagaalkii Turkiga iyo Greega dhexmaray 1897 waa waqti khazaanada dawladda qasnada dawladdu ay aad u maratay dawladdii ay hanti badan u baahatay deyn aad u tiro badan lagu lahaa wadanka kan oo boqorka riba markuu qabsaday 1.5 milyan
liiro oo dahab oo dayna baa lagu lahaa yacni boqolaal milyan oo boqolaal maxaa la yidhahdaa bilyan oo hadda joogay u dhigmaysaa lacagtaasi marka dowladda aad u cidhiidhi dhaqaale haysta way noqotay dagaal la gashay dagaalkaas u damcay inuu ka faa'iidaysto Herzl markaluu yimi dabeetana wuxuu soo dirtay safiirkii Turkiga ee Vienna fadhiyay waxaanu dalbaday lacag badan baanu siinaynaa dowladda ay isku difaacdo boqorka aan la kulmo markana wuu diiday Zionismku waxay qabsadeen shirkoodii Switzerland lagu qabtay Switzerland magaalada Basel la yiraahdo 897 shirka waxa lagu gudoominayay in yuhuud la raro oo la geeyo meesha la yiraahdo Falastiin laakiin waxay yiraahdeen laba mid oo dhacda mooyaane yuhuud suurtagal ma ahayn Falastiin la geeyo ka koowaad dawladda Uthmaaniyada oo diidmadan qayaxana ay la soo taagantay dib uga noqoto inoo ogolaatay inay degno kaas waa mid ka labaad bay yiraahdeen weyn dawladda Uthmaaniga ridno labadaas sababood midoon ama dawladdaasi inay aqbasho ama in la rido ayuunbay yuhuudi ku tegi kartaa maxay ayuunbay Falastiin ku tegi kartaa boqorkuna 1898 buu soo saaray يهودي أن تابعية لهين يعني تابعية وجنسية أن جنسية عثمانية لهين إن أنا بوقم بكرين فلسطين اللهم إلا مسألة دينية مويان هدو مسألة دينية وتجانا صدّن معلومات كبدن إن أنا تشوي كرين صدّن معلومات وحي كبدننا محكمة اللي تاجي دونا أما الله حكومة دونا حقوق لقصار دونا وضنك كون سجال بقولي يلا بدي ما كي مريس التاريخ له أيوه هذا هرتزل صار نقضة ما كان مقصتان وهو صار نقضة هذا إن بقركي عبد الحميد يسقى له وحي دين لقولها ودن كورنا بانو بحيننا دين تن الدولة العثمانية لك عكر لا ده هاي لما أنت بانو بحيننا لكن هنا لا أقول هذين إن فلسطين دي كرنا وهو جواب بقركني taaka in leeg oo dhul kamida idin ma siin karo waayo buu yiri aniga hantidayda ma aha dhulkani waa hanti umada muslimka ay leedahay marnaba marka suurtagal ma aha oo ay dhiigooda ku furteen buu leeyahay marnaba suurtagal ma aha inaan idin siiyo yuhuuday malaayintiina iska haysta buu jawaabay waxay bilaabeen dawladda Uthmaaniya boqorka iyo waxay degaayeen xagee اسطنبول بالكون قبلها كتل تلية مالها كان إلا لا لوشو أو دقموين يرى ما مالا يرى دق كرام إن لو أقلاده كون سقال بولي الصدح مركي مريسو أي وحي بلابين إني كابوتسكا وحنا إلى هذا يسميه كابوتسكا سيستم يمكن يهودي دون دكسو كرديان ونوع من إسكاشتا دبا ميل دقية beeray iibsanayaan dhammaantood waxbay wada lahaanayaan meeshoodaasi way u qafilaanaysaa community wada nool bay noqonayaan beeraha laga wada shaqaynaya wixii beeraha ka soo baxa la wada cunaya meesha wax la isku baraya dabeetana geeto yaro iyaga u qafilana mustawtara gaar ah oo wadanka intiisa kala xidhiidh la lahayn ee go'doon ah oo halkoodaas iyabay bilaabeen waa kii Batski ugu horeeyay oo يهود فلاحين على كانوا يساسكوا بلابين كن سجال بقولي السجال كي مركي مريسي أي بلابين مقالة هذا تلابيب لا يرادا تلابيب ومقالة دي يافل لو نشري وقوي كذا لقى بلابين وأكون سجال بقول هي السجال كي مركي تاريخ المريسو وحي سعطبة نبكي يهود وحي كقول استبغرتويد عثمانيين تاني الرداء والركب بلاب مي مدنية وحيل الشيء وركي الاتحاد والترقي لا يرادا مصطفى كمال اتاتورك iyo groupkiisi dabeetana akhiran waxa lagu qasbay boqorkii ka talinayay dawladda Uthmaaniya March ama yani dhahdo July 1908 baa waxa lagu qasbay in uu ka daadego boqornimada qasab baa lagu daadajiyay laakiin thawra shacbiya baa dhacday dadkii baa kacay kadibna
ciidamo itixaad wataraqigaasi ka tirsan ama turkigu leeyahay oo magaalada Salinik la yiraahdo Greeka ku taala jooga ayaa la soo dhaqaajiyay oo mid carabiba hogaaminayo Mahmoud Sami Basha la yiraahdo uu hogaaminayo kuwaas Istanbul soo galay kacdoomkii waa la jabiyay boqorkiina saasaa lagu riday waxaa bilaabantay الدولة العلمانية تركيا كتالينيسا بقولكي كون سجال بقول استحيل تكيبا للردي خلافة دينا وحلا بابية كون سجال بقول أفريقيا لا تنكي بشمار شلا إلى هذا السدحدين أنت أكيد تاريخ هذا بدن وكله أي أو بهنين كور نو وقت جالس سلادي مكان هذا نقول السمر كذا بساعة وفرديسة عموما ما كانوا لأنه حديد كيهود هي مسيحيين كدحية محوها حديد كمسلمين يهود كدحية وحيوها إن يدد مساكين وكوهس النول لكي كتاليان نبضنا كوهستين يهودي هاي لكن يسبين لقتلين أيين يهودي مسلمين تلين دقني عالم الإسلام من الدولة العثمانية ما وقلاتي لك كلام مسلمين بحكي شيء دولة دي رومانسكا كتلينيسي بيت المقدس يا غير كذا لكن يهود ماشي وحيكون حل هاي حل هذا حكم ذاتي وحو ايغو كله ومغالده غودهيده marka waxa ka talinaya boqortooyadii roomaniska nima ka fadhiya oo magaalada maamulo laakiin iyaga waxa loo ogolaaday maxkamad yar oo gaar ah inay yeeshaan oo dadkooda ay ku xukumaan oo arrimaha dhexdooda marka arrimaha dawladda ma wixii arrimaha dhexdooda maxkamadaasi waxay ka koobantahay 17 nin 17 nin 70ka waxay ku qaadeen oo yiraahdaan waa intii nabi Muuse raacday 70kii quraanku tilmaamayay safarka uu raacay iyo kaahinka ugu weyn 70kaasi marka waa wax garadkooda waa yeelkooda wadaadada wax kamid ah iyo wadaadka ugu weyn oo ku 17 nabi ciise maxkamadaas la taagay isaga iyo laba tuug baa la soo taagay saddexdoodaba dil bay ku qaadeen in la salbiyo waa nabiyullaahi ciise markii ay ka hor yimaadeen nabi ciise iyo laba tuug baa waxa lagu qaaday in la salbiyo dabeetana waxay u tageen boqorkii ama xaakimkii meesha ka talinayay ee roomaniska u fadhiyo waa iyagu wax ma daldali karaan dawladdu baa wixii noocaas ku shaqale حاكمكي بقى وتجي واحد هذا صدق ده تنديل بقى نقوق نيدي حكم ككفلي وأجي بعد تاريخ يا نبي هذا وحول وريانا إنك أنا أقول بريه هاي منوارك وأنا بعيسى أبصروا أنتم اسكهوا بيا الركيسة وحيقول جواب شعب كودي يقولون أنت يصور ريان دمه علينا وعلى أولادنا دي جيسة أنجا يقوى نقدر الله بدوش وصار أنجا كمسؤولة نبي عيسى سداس با صليبكي لو صاري iyagu say ku tala galeen ilaahayna quraanka inuu kaga waramay quraanka ilaahay waa ka inuu hooyadiina waxay yiraahdeen zaaniyad bay ilaahay waa ka quraanka kaga waramaya qadiyada iyagu ba qirsan yihiin injiil umataana ku qoran oo kitaabka kristanka ah damu alayna wa ala awladina wa injiil umatabu ku yaala ilaahayna waa kale waa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم يهودية قصدا اعتراف سن وتلمود كذا وكو قرية هي يسوع المسيح ارتد عن دين اليهود وعبد الأوثان وكل مسيحي لم يتهود فهو وثني عدو لله ولليهود تلمود كذا وكو قرية يهودي مكا عيسى هي دين زانيتها يسقون السنم كأنه عابده إنه مسلم أما دين تإلهي ما لبك سوقرين ساسيكم ما يسمعيه نمكي مسيحيين تاها يجا علاد بمركان نحتاجني أخيرا دولة دي رومانسكا هيد قسطنطينيكي اللي ورنجري وكي مسيحية دقاطي وأكوي شرارك قال يدو مسيحية دي محرف كاهيد سينكرر ما يسنى ما قرآن كبت الماما يبقاته إيقونا مركا وحي بلابه تينك الرميسان إلهي سيني يهودي دلين حكي يليه
iyaguna waxay bilaabeen yuhuud inay ka takhallusaan yuhuud markaa iyo masiixiyiin colaadaasba u dhaxaysay Persianka labada dawladood ee waaweyn baa isdilayay yuhuud mar haddii Romanisku eriyeen waxay hoos galeen maxay dawladdii Persianka ahayd ee majuusiga ahayd dawladdaas iskala nooliyay markay dawladda Persia ku duulayso dawladda Romaniska qolada tanbay soo raacaan markii ay Baytul Maqdis qabsadeen Persianku ee la jabiyay nimanka Romaniska yuhuudi way yimaadeen meesha kiniisatul qiyaama way gubeen wixii ay leyn kareen waxa la yiraahdaa 60000 nasraani baa lagu dilay markaasi meesha oo Persiankii iyo yuhuudda la socota ay xaaqeen Heraclius baa dib u guulaystay oo dib uga qabsaday nimankii meesha isna yuhuud buu mar kale soo xaaqay arrinku markaa wuxuu soo gaadhay in yuhuud laga saaro Baytul Maqdis oo aan shaqo ku yeelanin Falastiin iyo agagaarkeeda oo dhan inaanay joogin intii dawladda masiixi ka talinaysay markii dawladdii muslimiinta ee hore qabsatayna Umar waa kuwii heshiiska kula galay inaan la keenin cid yuhuudiya meesha waqti dambe ayay muslimiintu u ogolaadeen markii inay iman karaan meeshaasi siiba dawladda Ayuubiya wixii ka dambeeyay oo dawladda Ayuubiya baa ogolaatay yuhuuddu meel kastoo muslimiintu inay ka degi karaan waxaynu odhan karnaa dhowr qarni ka hor waxaa bilaabmay diintan hadda la yidhaaho Protestanka waxaa bilaabay Martin Luther wadaad la yidhaahdo oo Jarmal ahaa markii uu afkaartiisa bilaabay waa laga eriyay Roomaya agagaarkeedii waa baxsaday Germany magaalo Bamberg la yidhaahdo buu degay dagaaladii Protestanka iyo Catholic bilaabmay Germany dadkii ku noolaa waxa la yiraahdaa thuluth ka mid ah dhintay dagaalada dhexdooda ku dhintay John Calvin oo isna Francis ka soo baxay baa taageeray dawladda dambe ama madhabka Protestanka oo umuuman la yiraahdo waa 7 branch buu qaybsamaa min 28 ilaa 40 madhab iyo kaniiso isugu jira maxay kaga gedisan yihiin kuwii hore masaa'il dhowr ah koo waxay kaga gedisan yihiin غفرانكي ودادك لعقت اللسينة يلو إيمانية إنه الدنبقيسة دافل الربي وحبك بجريان بيدان أيضاً هديبا أطرما يسا عيسى إنه مخلص كاقية خلاص دنبقاكو مركا سورة ماضي وما بهنيد عندما بعضو تشتو كتابك كريستان كاثوليكا يسيستم كان ودادكم بفصيري كرا كون سندود باني دادكو كتابكو ودبا أرق ميلو يالو أو كنيسة دون يالي وذاك أسلم بيسوي كلمة السماء لو كهضل كرا شرح كرا كان وحكم الجيران بيلاه نول بكتابكم وآخري كرا وأنا شرح كرا وأنا فهم كرا مسألة التعليم تاعو إن دتك علم قال برو ومركز سيدتك كتابك آخري كرانا أد بي بومبومية وكوي كين جيمس فرشنكي سمية بل وحنا ركرنا يعني الثقافة العامة في أوروبا الغربية عدة وحكا بدا الشيء مركز ده بحوق وحوقا بدا الشيء ومثل كم بروتستانكا وجامعات كمان تدوني ده عانكا تقانين با يقع أساسي مثلا هارفارد يونيفرسيتي وجون هارفارد نلا يراهدو ودا ده أساسي جامعة ييل جماعة من رجال الدين كتر سنبا أساسي برينستون يونيفرسيتي الكنيسة المشيخية با أساسي جامعة بنسلفانيا كواسا أساسي قاكلو كميدا جامعات كودر كولومبيا جامعات كوجوا وين ما أنت دون ده وجوا عنسان أوكسفورد كامبريدج وحنا ندم حاله مذهب كم بعد بو أساسي ما دام يجوا تعليم تا وحياة شكر ديانو كلا وحكم ده ها مسألة ده قصة سن وده كينو جورسن كرو وده ده بروتستان كها إنه باب كا ومصعنه باب كا نصعد عوام حي سدح مسألة وأن هرق ولا ظهره وهي سنين بيشكر ديان بروتستان كو يهودين شعب الله المختار تهي يا أبنادي سينيين وإلا التقديسيو يدد ويين وحي كلا سوكر ديين دولك فلسطين إلهي إنه بلن قادوسيين منك يهود عن طريق آبائهم إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب عهدي الله لقلي أي إلهي وبلن قادي أرض كنعان وفلسطين إن يقولين مركا وحي لين من الله بلغ السيين فلسطين تماله أوح على محي
yahuud baa xaq u leh saddex waxay rumaysan yihiin ciise inuu soo noqon doono oo 1000 sannadood oo dambe dunida cadaalad ku xukumi doono laakiin soo noqoshadaasi inay ku xidhan tahay yuhuud in dhulka falastiin la siiyo oo qudus ay ka taliyaan markaa unbuu ciise iman doona oo la dhisi doona haykalka saddexaad si ilaahay u soo noqdo yuhuudi waa inay falastiin yeelataa sida awgeed kiniisadda katholiga iyo orthodoxku iyagu masalada may qabin waxaanay qabeen wacdigan kitaabka ku qoran ee ay sheegaysaan berigii qoorsh ee Persia ay dib u soo weerartay buu dhacay bay leeyihiin wacdigaasi wuu dhammaaday ballankaas aaladin kitaabka ku qoray tafsiirkiisu waa ka haykalkana waa tii markaa labaad la dhisay markaa iyagu baabkan may rumaysaneen masaladani maxay keentay markaa waxa ingiriis ka bilaabmay wax la yiraahdo Christian Zionism الصهيونية المسيحية oo wadaada leh oo qoraaya leh oo siyaasiyiin leh oo rumaysan si kastoo ay u dhacdaba yuhuud dunida inta laga soo ururiyo in la keeno meesha la yiraahdo Falastiin kutub badan bay qoreen oo masalada lagaga warramayo oo shacabka laga dhaadhicinayo hadda ma wada akhri karo laakiin kutub aad u tiro badan oo masalada ka warramaysa jiro ay qoreen waxaa jira awraaq siyaasi oo tiro badan oo raggoodii caankee la yaqaanay ilaa iyo laga soo gaadhayo kuwii dagaalkii labaad ee dunida galay maxaa la odhan jiray Winston Churchill awowgiisii Churchill baa xataa madhabka rumaysanaa madaahibtan xoog bay u qaateen kadibna waxaa la qaatay oo markii dambe madhabkaasi uu gaadhay waddanka Mareykanka la yiraahdo dabeetana isna siyaasiyiin badan oo kamid ah kan imika jooga muxuu lahaa 50 sano ka hor isagoo jooga maxaa la yiraahdaa isagoo senator ayuu wuxuu lahaa xataa haddaanay Israa'iil jirin innaga ay ahayd inaynu abuurro buu leeyahay jirto waa Christian Zionism yuhuudii waagaa noolay way ka cabsi qabeen inay dawladda Uthmaaniya ama waajahan ama muslimka waajahan meesha taagaan iyaga dabada ka meermeeriyay waqtigii hore oo dhan inay meesha yimaadaan laakiin markii ay xoogaysteen dawladaha kan reer galbeedku ayay waxay bilaabeen iyaguna Herzl iyo nimankan inay nimanka bilaabay Israa'iil inay meesha degto ma aha niman diinta yahuudeed haystay u fiirso masalada Christian maxaa la yiraahdaa yahuuda Zioniska nimanka bilaabay أكثرهم وحي علماء التاريخ رغبة أنه كم يقولون إن الملحدين هاي هرتزل دين ما أمن سنان بيلي وايزمان مدحوينه كواد إسرائيل ما أمن سنين بيلي بنغوريان مو أمن سنين بيلي جولدن ماير ملحدات بيهي بيلي موش ديان ملحد كوة تقانين كتالية إسرائيل جيل كي مؤسسين تي أبوري قوميين يهوديين بيهاي متكم مداوح ليه ninka yahuudiga diin kale ma qaadan karo aan yahuud ahayn haduu yahuudnimo ka baxo mulxid uu noqon karaa bayna laakiin diin kale ma qaadan karo idan rag qoomiyad yahuudeed aaminsan baa bilaabay kuwan imika diinta aad ugu kakani inta badan waa kuwii caalamul islaami ka tagay xaydaradka iyo kuwan madaahibta hadda la tilmaamay meeshu waa kuwii ka tagay Yemen iyo Morocco iyo Iraq iyo meelaha kan bay ka tageen kuwa ugu qalafsan meelahan bay ka tageen kuwa kale waa cilmaaniyiin qowmiyiina inta badan kuwii ka yimi Yurub tabari inda bulu yaale waa maxay yiraahdaan wixii meesha ka taliyay midima ka bari dhaweydin yar qabsaday mooyaane wixii meesha ka taliyay oo hore oo dhan beegan baa ka jira wax kiniisad galoo tukaday bay yiraahdaan inta kale salaad ma tukanin macnaheedu waa maxay waa diintan iyo waxaan shaqo kuma leeyahay qowmiyiin yahuudaha يا دينهان آمسان الميشن لدغو بروتستانت كآمسان يا إسرائيل سو أورورية ميشن تندجية بروتستانت كآمسان وحا مركو هره أورورية إنجليز الدولة العثمانية مركي اللي تشبيين 1917 إيقو الدولة العثمانية تشبينية أي وعد بالفور هذا نقله وعد بالفور محوشيغية عربتها لغا قريو لكن هلا أديك سدو هين اللي تشبيه الدولة العثمانية الدولة العثمانية دتك يوجو بدنا يشبيه عربي هاي وهي عيد مدى دو أدق أي واحد شرين ترين كيزات كعيد مدى وكيني ترين بشري اسطنبول كصباحه مكة يمنية حجاز مدينة ترين كأنت نسكو حريه مركا عالم العربي يدو كانوا ردن عيد ما ترب بدن بشوجي الدولة العثمانية كترصد
carabtaa lagu yidhi dowlad baanu jinsiinaynaa dowlad carbeed maxaa idinka cusmaaniyiin idinkaaba nebi maxamed ku abtirsadee ee dowlad gaara laydin samaynaya waa ka heshiis buu la galay boqor xuseenkii meesha joogay iyo shariifkii ayuu heshiis la galay dabeetana heshiiska waxaa ka mid ah inay dowlad jarmalka oo ay istaageersanayaan dowlad cusmaaniya in dowlad cusmaaniya ay carabtu la dagaal gasho xulafada faransiiska iyo ingiriiska waanay la dagaal galeen iyagaa gooyay treenkii saasay isku dhiibeen ciidamadii dowlad cusmaaniya lagu qabsaday 1918 allenby nin la yidhaahdo baa markaasi qabsaday magaalada qudus la yidhaahdo waa ninkii markuu bayt almaqdis soo taagay bay yidhaahdaan xabaashii salaaxudiin intuu harraatiyey buu yidhi haa cudnaa yaa salaaxadiin buu yidhi intuu xabaashiisa harraatiyey buu yidhi soo noqonnay salaaxadiinow dii salaaxadiin markii horena saaray hadda waa joognaa hadda marka cidda yuhuud iminka dagaalka ghaza ka socda ilaa hadda 230 dayuuradood oo hub siduu keenay maraykan 30 maxaa la yidhaahdaa markab oo dagaaloo hub sida buu u keenay dooyood maraakiib hub u sida bayskiisu meesha ku lahaa wixii hub yaallay wuu u furay intii israa'iil jirtay 40 veto oo United Nationka la geeyay buu veto saaray oo in ama la ceebeeyo ama wax laga qaado caynkaasi ayuu veto saaray idan israa'iil cudud ay leedahay meesha kuma joogto ilaahay quraanka muxuu ku tilmaamay dulnimadii waxa siinay ku dhacayaan ilaa bihablin min Allah aw min an-nas ba quraanka qoran hablun min Allah waxay helayeen markay diinta haysteen ee ambiyadu hogaamineysay ee nabi daawud iyo nabi sulaymaan iyo boqoradani talinayeen marka hablun min Allah bay haysteen wixii ka dambeeyay markay nabi ciise beeniyeen iyo nabi maxamed iyo ambiyadii dambe yuhuud wuxuu ba madaxa kor u qaaday hablun min an-nas markay heleen waa markii qoorash ama salaaxadiin al-ayubi ama kuwaasi ay kristan ka dhicinayeen iminkana waxay heleen madhab diineed oo kristanka ka mid ah oo rumaysan inaan ilaahoodu soo noqonaynin yahuudo qabsata meesha mooyaan sadaradeed waan iska soo duubay taariikh badan oo u baahan inaan ka waranno zionismkan iyo siduu u bilaabay iyo puritaniska kuwii loo jiray al-mutatahhiruun madaahibta ingiriiska ka bilaabantay waxa kan ilaa xad maraykanka rag waaweyn oo madax ka ama caynkanka ay rumaysan yihiin waxa ilaahay ku barakeeyay maraykan caawintu caawinayo Israa'iil yani barakadu halka inooga timi bay leeyihiin waxa weeyaan caawimada aynu caawinayno Israa'iil ala kulli xaal ka yuhuudahan waa qoomiyad bini aadam ka mid ah in la dulmiyo maaha laakiin masalada inay dad kale dhulkood boobaan oo laayaan oo xoog ku joogaan waa masalaan sinaba qaanuun bini aadam iyo mid diimeed iyo midnaba aanu qoraynin cidda ka dambaysee wadaana waa Christian Zionism kaasi wuxuun baanay xoroobi kartaa dad diin haystaa markay u yimaadaan sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin جزاه الله خيرا شيخ الله بركاته لما أدمن إسكافريست ولا أدمن يا مركز تكونين إن شاء الله تعالى